magaaladaasi u jirta waxay uga hortageen wafdi isugu jira isimo iyo ugaasyo uu hogaaminaya garaad jaamac garaad cali iyadoo wafdigaasi iyo mas'uuliyiinta maamulka SSC ay sheegeen waxyaabo fara badan markii dadkaasi ay isku soo baxeen warkan waxa magaalada Buuhoodle nooga soo diray wariyaheena Cabdiraxmaan Soomaali wafdi ballaaran uu hogaaminayo garaad jaamac garaad cali garaad jaamac oo ka kooban isimo khusuusi iyo cuqaal ayaa soo gaaray magaalada Buuhoodle wafdidaasi ayaa waxaa loo soo dhaweeyay si heer qaran ah waxaana dadweynuhu ay kaga hortageen meel hilaadii 5 kiiloomitir dhanka bari ka xigtay magaalada Buuhoodle halkaasi oo laga soo galbiyay wafdidaasi ayaa waxay socdaal dheer ku soo wada mareen dhammaan wadooyinka dhexmara xaafadaha kala duwan ee magaalada Buuhoodle iyagoo markii dambana meel fagaara ah kala hadlay dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Buuhoodle ugu horeyna waxa hadalka u baxay hogaamiyaha mideynta iyo badbaadada ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn Dr. Salmaan Ciise Axmed Kaar xagla toosiye Buuhoodle aad baan idin salaameynaa sida sharafta leh taliimada leh aad u soo dhaweyseen garaadada iyo ugaasyada waa maalin weyn oo farxad ah waa maalin ay caddahay in shacabka SSC uu tusay caalamka in ay diyaar u yihiin inay iyagu hantaan oo maamushaan deegaankooda anigoo fariimo hore u diray waxaan marlabaad ka dalbayaa maleeshiyada sida khasabka ah ku joogta deegaanka SSC inay si nabadgelyada uga baxdo annagu shacabka SSC waa dad Soomaalinimadu ka go'an tahay u dhintay dhiig u daadshay dhiig Soomaaliyeed inuu daadsana aan jeclayn khasab ninna kuma jooga deegaan aanu lahayn naga taga baanu idin leenahay munaasabadaasi soo dhaweynta ah oo muddo saacadaha soconaysay ayaa sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale oo isagu aad ugu mahadnaqay dadweynaha reer Buuhoodle sida sharafta leh ee ay u soo dhaweeyeen waftidan salaanta bacdi ilaahay waa mahadle waxaan halkan mahad gaar ah uga soo jeedinaynaa dhammaan shacabweynaha SSC gaar ahaan shacabweynaha gobolka Cayn ee Buuhoodle sida qiimaha leh ee qaayaha leh ee sunnimada ah ee gobonimada ah ee walaaltinimada ah ee aad noo soo dhaweysay ilaahay ha idin soo dhaweeyo intaa haddii aan ka gudbo Soomaalidu waxay tiraahdaa nin fadhigaada arkaya looga soo joogsado sidoo kale waxa isna halkaasi ka hadlay garaad cali buraale oo isagu halkaasi ka soo jeediyay geeraaro uu ku wacyigelinayo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn odayaashan ku hormaraya waxaan u jeedinayaa ninka deynka qaatoo sheeyuhu dirsado oo daba dhinac ku magac dheer keligii danaystaha dawa ma helan aynu dawlad noqonin waxaan ku xijinayaa afarranka yaranka eegoo gabdhaha gaaw ah waxaan gabdhaha leeyahay gabdhihii dhulbahantooy qaladkii wacnaadow ruuxii siciidow marka dalaqnada xaajadu lagu dhaadan jirayow dangadiinna qaato dhinacyada ka raaco yaanay sharaftu dheelin waxaan ku xijinayaa dhalinyarada ragga ah oo wiilasha ah oo meesha badan u badan ilaasi qaliye waa laba durduurta arrinta yaa la diidine deegaankaa la hayniyo duruufaha ka jiric iyo dayac iyo xumaantiiyo dhibaatada dadkeennii inteebaa damiirka iyo dareenkoodu nool yahay inteebaa diyaaru aan dib xorayne ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi oo muddo saacadaha soconaysay duco ku soo gabagabeeyay garaadka guud ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn garaad jaamac garaad cali garaad jaamac khayr Allah idin siiyo
جزاكم الله خير الجزاء إلهي أنت إذا كحانوا سالس عافمات إذن كسيو أنت دايميسان قانتا الله كبحيو قلوبتين برعاد الله يسمريو رسل وطرنا الله يوافقيو ملحظة آية دورتين الله يدين بركيو الله يدين بركيو عبد الرحمن عمر عبدي عبد الرحمن صومالي يونيفرسال صومالي